iyadoo muddooyinkii u dambeeyay hay'adda shaqaalaha dawladda ay ku hawlanayd ururinta xogtii ugu badneyd ee shaqaalaha dawladda laga helo muddooyinkii u dambeeyay ba waxa soo dhamaaday wajigii hore ee xog soo qabadka iyadoo muddooyinkan dambana la waday in la dhageysto wixii cabasho ama codsi qaba si dib loogu eego hay'adda shaqaalaha dawladdu imika waxay bilowday in xogta tirada badan ee la soo helay la xareeyo si fiican lagu kala hufi karo Soomaaliland waxay muddooyinkii u dambeeyay ama markii u dambeysay ay yeelan doontaa xog rasmi ah oo qaranku ku qorshe iyo qiyaas qaato isla markaana dib loogu habeeyo wax walba la doonayo shaqaalaha lagu horumariyo tiradaas oo aad u badnayd oo shaqaalaha dawladda bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur inta badka Soomaaliland leeyahay loogu tagay ba waxa la soo ogaaday xogtii ugu qiimaha badnayd uguna tirada badnayd ee abid ay Soomaaliland yeelato xogtaas imka waxa ku bilaabmay kala hufidii iyo kala haadintii iyadoo maalmahana lagu jiray in xogtaasi la xareeyo xareen kadib waxa kala bilaabmi doonta in xogtaasi la kala hufo lana kala haadiyo aan soo baxdo xogtii rasmiga ah ee qarankan ku qiyaas qaadanayay waxa halka ka soo bixi doona kaalimaha shaqo ee qarankani doonayo in dadkiisa banaanka ka jooga ay soo galaan sidoo kale intii gudaha ku sii jirtay ba waxa loo diyaarin doonaa horumarin iyo habayn wixii ay dib soo tirsadeen waxay noqon doontaa mashruucan iyo hawlqabadkani mid uga jawaaba wixii aynu baylah iyo baahi soo aragnay ama barxad qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaalihiisu ay qabeen hadda waxa u bilaabmi doonta inay falcelin yeelo doonto maalmaha soo socda waxaanu shaacin doonaa maalinta rasmiga ah ee xogtaasi intay soo dhameystiranto qaranku iskugu iman doono si aan xogta ugu soo bandhigno Soomaaliland waxay jidka u qaadi doontaa inay hesho go'aamo ku saleysan xog